Maryam waa hooyo danyar ah waxay haysataa 4 caruur ah labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxay ku jirtay qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka guud ee magaalada Boorama kadib markii uu dab qabsaday gudoomiyaha ururka Anfac Foundation Hinda Cadoosh iyo xogayaha ururkaasi Muxyidiin Raad Shabeel ayaa saaka ku booqday hooyadani la ildaran dabka qabsaday si ay ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ugu weydiiyaan inay soo kaalmeeyaan Ilaahay ayaa kaalmada bixiyay waxayna si naxariis leh bulshada ugu direen inay ku taageeraan wixii ay awoodaan si caafimaad loogu helo Ilaahay baa caafimaadka bixiyay muuqaalka hooyo Maryam oo ah mid ku damqaya ayaa waxa la hadlay dadka muxsiniinta aabaha dhalay hooyo Maryam wuxuuna si naxariis leh uga codsaday inay ku soo kaalmeeyaan inantaydii oo dab qabsaday oo dhib qabta han maaragtay haltii han ku geeyo dhakhtaradiina hawaay iyo macaawiimo ka doonaya ummadda islaamka sidoo kale gudoomiyaha ururka Anfac Foundation oo si naxariis la fariin ugu dirtay ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta si ay u kaalmeeyaan hooyadani oo ah hooyo danyar isla markaasina ahayd hooyada u shaqaynaysay 4 caruur ayaa waxa ay bulshada u dirtay fariin ah inay dadkani ku soo kaalmeeyaan hooyadani si caafimaad mar kale loogu raadiyo aniga ku hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation waxaan maanta la joognaa nala soo sheegay arrin naxdin leh walaashay Maryam anigoo dhakhtarka ugu yimiday gabadh fahmin xanuunsanaysa ayaa waxa la sheegay qaybtan emergency-ga ee jaarkeeda inay taalo gabadh dab qabsaday isla markaana aad u dhibaataysan dadka ugu leeyihiin dad danyara Maryam waa gabadhan hadda aan la joogeen ag fadhiyo runtii markii la ii sheegay aan u soo wareegay aad baan uga damqaday xaaladeeda sida aad kulleeydu kuwa aad arkaysaan saashada ka arki doontaan wadi ka arkaya xaaladda ay ku sugan tahay Maryam waxa la ii sheegay waalidkeedii oo dul joogay isla markaa aanu imiday in lagu qalliin ayaan u sameeynaa qaybta alxayaad dhakhtarka iskiin ayaan saarnaa jirkeeda oo waxaan ka ridaynaa dabeeta iskiin ayaan saarnaa iskiin kaana waa lacag oo dhakhtarka alxayaad wuxuu lacag ayaan ku qalayaa isla markaana aanay haysanin lacagtii lagu qalayay marka ummadda islaamka ee afkaan ku hadlana garanaysa meel kasta oo joogaan waxaan ka codsananaa in ay si naxariis leh walaashood Maryam ugu soo naxariistaan lacagta qalliinka ay ku galaso nin walba awoodiisa ka $1 ku kaalmeyn karaya ka 2 bixin karaya ka 10 bixin karaya nin walba awoodiisa iyadoo waxba u talasaa marka iskaashato marka ummadda islaamka meel kasta joogto waxaan ka codsanaynaa inay Maryam u soo damqadaan dhibaatada haysta darka siin iyo xanuunka haysta wajigeedu sidoo yahay qoorteedii dhageheedii marka Maryam sida ay tahay afar ciyaar ay leedahay inuu hoos jooga marka waxaan ka codsanaa ummadda islaamka inay soo naxaan inaan soo naxno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا اسكون حريصته أيو الله يريد يعني إذا كنا حريصته تاني نوع مدة اللي وين إنه امتحان يو وانا جنا نسوق هالمينو